ibnu Battuta waxa uu ahaa aqoon-yahan ahaana socdaale kii ugu weynaa ee ay taariikhdu xusto. Ku dhowaad kala badh cimrigiisa waxa uu ku baxshay socdaal aad u dheer. Sida ay taariikhyahanadu sheegaan, ibnu Battuta waxa uu magaciisu ahaa Maxamed bin Cabdallah al-Lawaati. waxa uu dhashay 703 hijriyada oo waafaqsan 1304 miilaadiga. waxa uu ka dhashay qoomiyad Berberi ah oo degta qaybo ka mid ah dalalka waqooyiga Afrika. markii uu soo gaadhay da'da 21 sano waxa uu go'aansaday inuu safro magaalada Maka si uu soo xajo. safarkiisii xajka waxa uu ku qaatay 16 bilood, wuxuuna go'aansaday inuusan ku soo laaban magaalada Morocco uuna bilaabo socdaal aad u dheer oo uu ku tegayo dhulal badan. Morocco waxa uu ka maqnaa muddo dhan 24 sano. waxa uu safar ku maray oo uu cagta mariyay waqooyiga Afrika, bariga Afrika, galbeedka Afrika, bariga dhexe, bartamaha Aasiya, koonfurta Aasiya, koonfur bari Aasiya, Shiinaha iyo koonfurta Yurub. waxa ay ku qaadatay inuu ku tago dhulalkaas muddo dhan 30 sano. waa shakhsiga isaga gudbay min cidhif galbeed ee Timbuktu oo Mali ah ilaa cidhifka bari ee Shanghai oo Shiinaha. sidoo kale waxa uu isaga gudbay min cidhifka waqooyi jasiiradda Shiriki oo Talyaaniga ah ilaa cidhifka koonfureed ee Indonesia. taariikhyahanadu waxay xusaan inuu ahaa kii ugu weynaa taariikhda aadamaha ee la og yahay oo ku socdaala dhul intaas leeg, wuxuuna hormood u yahay baarayaashii ugu socdaalka dheeraa taariikhda. marka la eego dunida casriga ah, waxa uu safar ku maray masaafo dhan 117,000 oo kiiloomitir. waana shakhsiga jaray masaafada ugu dheer taariikhda ee socdaal ah. waxayna dhan yihiin dalalka uu booqday 44 dal oo ay ka mid yihiin kuwa aad u waaweyn. dalkeenna Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka uu safarka ku maray ibnu Battuta, waxayna ahayd saylac goobtii ugu horreysay ee uu cagta soo dhigo, isagoo maalmo kadib safar badda ah uga gudbay dhanka bari. waxaanu mar kale cagta soo dhigay cidhifka bari ee ugu shisheeya qaaradda Afrika ee Gardafuul oo uu ku nastay halkaas. waxa uu uga sii gudbay isagoo doon ugu safaray dhanka badweynta Hindiya. ugu dambayntiina waxa uu soo cagta soo dhigay magaalada Muqdisho oo uu ku tilmaamay dhulkii Berberiyiinta maadaama ay aad ugu ekaayeen muuqaal ahaan dadka Berberiyiinta. xeebaha Muqdisho ayuu ka baxay isagoo u ruqaansaday dhankaas iyo xeebaha Sawaaxiliga ilaa uu ka soo gaadhay Mombasa oo uga sii gudbay Zanzibar. ugu dambayntii safarkiisii qaaradda Afrika waxa uu uga gudbay dhankaas iyo Doofar oo dhacda Cumaan ilaa uu ka sii aaday Eeshiyada kale. waxaa laga joogaa in ka badan 662 sano waqtigii uu safray ibnu Battuta. inta badan safarkiisa waxa uu isticmaalayay geel iyo gaadiidka badda. waxaa jirta buugaag aad u badan oo laga qoray safarkiisa, kuwaasoo laga soo guuriyey buuggiisa uu kaga hadlayo safarka ee la yidhaahdo Rixla. goob walba oo uu tago waxa uu kaga warramayay dhaqankeeda iyo xadaaradii ka jirtay wakhtigaasi. ibnu Battuta waxa uu ahaa sahamye aad uga caan noqday dunida oo ilaa maanta ay daraaseeyaan taariikhyahanadu, kaasoo baaqi ku ah goobaha cilmiga ee dunida. taariikhyahanadu waxay sheegaan inuu dhintay 769 hijriga oo waafaqsan 1369 miilaadiga. waxaanu ku geeriyooday magaaladii uu ku dhashay ee Tangier ee dalka Morocco.